golaha deegaanka degmada Baargaal ee gobolka Gaardafuu ayaa doortay gudoomiye iyo ku-xigeenkiisa kadib markii maanta halkaasi lagu qabtay doorasho muddo la sugayay. Golaha deegaanka degmada Baargaal oo kooban 21 xubnood ayaa waxaa dib loo dhigay 3 xildhibaan waxaana saaka la dhaariyay 18 xildhibaan oo codka dhiibtay. codadkii la dhiibtay waxaa ku guuleystay musharax Abane Caynab Muuse oo helay 13 cod asagoo noqday gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Baargaal halka musharaxii la tartamayay oo ahaa gudoomiyihii hore ee degmada Baargaal mudane Abuukar Indhacde uu helay 5 cod. sidoo kale golaha deegaanka degmada Baargaal waxay ku-xigeenka degmada u doorteen Ugaas Maxamed Axmed oo helay 12 cod halka Mire oo la tartamayay uu helay 7 cod. wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta dowlad goboleedka Puntland mudane Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad oo goobjoog ka ahaa doorashada ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa asagoo u hambaliyay gudoomiyaha cusub ee la doortay iyo ku-xigeenkiisaba kulana dardaarmay inay la yimaadaan gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Baargaal ahna duqa magaalada u tartamayay 2 musharax oo kala ah Abuukar Axmed Yuusuf oo ah gudoomiyihii hore iyo Cabdiraxmaan Caynab Muuse Abane. xubnaha codeynaya ee golaha deegaanka halkan fadhiya waxay ahaayeen 18 xubnood. mudane Abuukar Axmed Yuusuf wuxuu helay 5 cod. mudane Cabdiraxmaan Caynab Muuse wuxuu helay 13 cod. sidaas ayaa waxaa ku guuleystay gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Baargaal ahna duqa magaalada mudane Cabdiraxmaan Caynab Muuse. waxaan leenahay ambaliyo. waxaan haatan ku dhawaaqaynaa natiijada gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada Baargaal. waxaa u tartamayay 2 musharax oo kala ah Mire Maxamed Cali iyo Ugaas Axmed Maxamed. xubnaha golaha deegaanka codeynaya waxay ahaayeen 18 xubnood. mudane Mire Maxamed Cali wuxuu helay 7 cod. mudane Ugaas Axmed Maxamed wuxuu helay 12 cod. halkaas waxaa gudoomiye ku-xigeenka degmada Baargaal ku guuleystay mudane Ugaas Axmed Maxamed. waxaan leenahay ambaliyo. gudoomiyaha gobolka Gaardafuu mudane Muuse Saalax Guureed oo kamid ahaa mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay madasha doorashada ayaa la dardaarmay xildhibaanada iyo maamulka cusub inay ka shaqeeyaan horumarka ay bulshada degmada Baargaal ka sugayaan. waxaan kamid ah hadaladiisii. waxaan leeyahay gudoomiyaha cusub Cabdiraxmaan Caynab Muuse waa u hambalyeynaya boqolkiiba boqol. waxaan kaloo u hambalyeynaya gudoomiyaha ku-xigeenka Ugaas Axmed Maxamed oo isaguna aad goobjoog u ahaydeen ee halkan lagu doortay. ugu dambeyntii wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta dowlad goboleedka Puntland mudane Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad ayaa ku tilmaamay doorashadii maanta ka dhacday degmada Baargaal mid taariikhi ah oo ay xildhibaanadu ku muujiyeen sida ay u rabaan inay u qayb qaataan horumarka deegaankooda asagoo kula dardaarmay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Baargaal inay la xisaabtamaan maamulka ay maanta doorteen. dadku waxay u baahnayeen inaad qabataan baahidii deegaanka inaad ka shaqaysaan inaad aragtaan maahan oo kaliya Baargaal magaalada laakiin degmadii duruufaha ka jira iyo baahiyaha ka jira inaad aragtaan inaad ka shaqaysaan inaad u istaagtaan inaad ku xisaabtantaan. fulintii baad dooranaysaan guddigii joogtada ahaana waa iska qabanaysaan laakiin haddana waxaa la rabaa inta fulin doorataan uga harimaysaane sida la sheegayba waxay ka bilaabanaysaa fulinta cidda u dooranaysaa idinkaa is kala yaqaan sida xildhibaanku uu yidhi. cidda aad fulinta u dooranaysaan inay tahay cid aad ku aaminaysaan duruufaha iyo baahiyahaas aan ka hadlayno cid wax ka qabanaysa oo bedelaysa. intaasna aydaan uga harin waxaa la idinka rabaa inaad la xisaabtantaan oo aad dabagashaan oo aad hubisaan wixii dadku u baahnaayeen meeshayna ka dhacayaan. wixii duruufaha ee ay awoodi waayaan ama aad awoodi weydaan in wax laga qabto waxaa laga rabaa wixii dowladda ku xiranna dowladdu waa diyaar wixii bulshada ku xiranna inaad bulshada ka keentaan. waxaan ognahay xeebaheennu waxay ka mid yihiin meelaha barwaaqada kasoo barwaaqadaas aynu la soo baxayna intaan la gaarin waxa doonyo kalluumaysi yaalla waad la socotaa. doonyahaas boqolkiiba 70 ka mid ah suuq madow ayay ku joogaan
dad baana horgal u wada ah waxaa layna ka rabaa inaynu dowladnimadii ka shaqeyno si dhaqaalihii u soo xaroodo canshuurtii u timaado si canshuurtaas soo xaroota ay dalka dib ugu noqoto oo jidadkii loogu dhiso oo layrkii loo sameeyo oo maxaa la yidhaahdaa horumarkii iskuulaadkii loo sameeyo caafimaadka loo sameeyo biyihii loo sameeyo